السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب channel dadweynaha waa waxaan macquul ahayn in la sii sheego wax walba oo dhici doona dhowrka sano ee nagu soo food leh oo Allah oo kaliya weeye cidda og wax walba oo dunida mustaqbalka ka dhici doona balse arrinkaasi aadanaha kama hor istaagayo inay ka doodaan isna weydiiyaan waxyaabaha ay u malaynayaan inay dhici karaan. haddaba maanta barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadan doonaa oo aynu kaga hadli doonaa dhacdooyinno iyo natiijooyin cajiib ah oo ay suurtagal tahay ka aadam ahaan in aynu la kulanno mustaqbalka dhow iyo kan fogba innagoo isla markaana dhinaca ka fiirin doona fikradaha ay baarayaashu ka qabaan waxyaabaha ay u malaynayaan in ay dunidu la kulmi doonto sanadada soo socda. haddaba dhacdooyinkaasi qaar ka mid ah ayaa ah runtii kuwo aan fariir iyo cabsiya xagga qaar ka midna ay noqonayaan faa'iido iyo horumar uu ilaahay aadanaha gaarsiiyey. taawasho wacan barnaamijku dhammaystiran. haatan ku soo biiro ka mid noqo asxaabta ku xidhan adiga oo saaraya subscribe si aad ula socoto barnaamij walba la soo geliyo. aadanuhu waxa uu tegi doonaa meerayaal kale oo aan ahayn dhulkan aynu ku noolahay. waxaan filayaa inaad wada ogtiin mashaariicda sida mashruuca la magac baxay Mars One Mission. mashruucaasi ujeedkiisu yahay in aadanaha la korgeeyo oo cagaha loo saaro wareegaha loo yaqaano Mars sanadka 2025. طبعا marka la soo xaqiijiyo meerayaashaasi kale ay macquul ka tahay in la degi karo amnigooda iyo ku noolaashahooda waxa badan doonta tirada dadka xiisaha u qaadi doona inay iyaguna gaadhaan meerayaashaasi kale cusub. haddaba culimada arrimahaasi ku xeel dheer ayaa waxa ay leeyihiin waxa suurtagal ah in dhowrka boqol ee sano ee soo socda ay kor u kici doonto tirada aadanaha ka haajiri doona dhulkan aynu ku noolahay. laakiin haatan way adag tahay in la qiyaaso goorta saxda ah ee arrinkaasi dhici doonto iyo meeraha kale ee loo guuri doono. Mars amba hanidhada Mariikh miyuu noqon doonaa oo ah kan la diyaarinayo mise waxa la heli doonaa mid kale oo kaga habboon dhinaca nolosha. marka hore waxaa habboon in aynu fahanno sababta kalifaysa in laga guuro wareegahan aynu ku noolahay ee ah dhulka loona raadsanayo mid kale. laba arrimood ayaa aasaas u habaan la odhan karaa sababta loo raadsanayo meerayaal kale oo aan ahayn dhulka. midda koowaad rabitaanka ibnu aadamka ayaa iska noqonaya in ay soo arkaan meerayaashaasi kale. labo in looga cararo dhulkan aynu ku noolahay dhibaatooyin uu aadanuhu dhexdiisa isku geysto amba masiibooyin rabbaani ah oo dhaca. haddaba waxaad ku garan kartaa doonitaanka uu ibnu aadamku u qabo inuu dhulkan ka guuro dadaalka iyo tartanka loogu jiro in la helo goobo cusub oo aan weli hore loo arag. haatan waxaa jira 3 shirkadood oo dadaal iyo tartan culus ugu jira in ay arrinkaasi ka dhabeeyaan ee ah in aadanaha loo raro mustaqbalka wareegayaal cusub oo kale. shirkadahaasi ayaa waxa ay kala yihiin Mars One, SpaceX iyo NASA. Mars One ayaa dhaleecaan culus kala kulantay dadweynaha mashruucooduna haatan uma muuqdo sidii markii hore laga aaminsanaa balse SpaceX ayaa si dhow ula shaqaysa NASA waxaana la aaminsan yahay haatan in ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee aadanaha gaarsiin doona meerayaal kale. 2005 ayaa maamulaha shirkadda NASA Michael Griffin maruu hadlayay waxa uu yidhi I'm talking about that one day. I don't know when that day is. But there will be more human beings who live off the earth than on it. maalin maalmaha ka mid ah ayaa imaan doonta balse aanan garanayn maalintaasi goorta ay noqon doonto ay dadka ku nool goobo ka baxsan dhulka ay ka badan doonaan kuwa ku nool dhulka. haddaba ujeedka iyo micnaha hadalkiisa ayaa waxa uu yahay inay mar ay noqotoba ay dhici doonto inay aadanuhu u guuraan goobo kale oo dhulka aan ahayn. Stephen Hawking oo ah caalim fiisigisyaan ah kuna xeel dheer arrimaha caalamka amba universe-ka ayaa waxa uu ku dooday in la sahmiyo amba la raadsho meerayaal kale inay aadanaha badbaado u tahay mustaqbalka. sidoo kale 2001 ayaa Hawking waxa uu saadaaliyay in kunka sano ee soo socda jinsiyadda aadanuhu ka dabargo'i doonaan koonkan aynu ku noolahay waxaana suurtagal ah inay u guuraan meerayaal kale. haddaba su-aashu waxa ay tahay midkee ayuu noqon doonaa wareegaha ugu horeeya ee ay aadanuhu degi doonaan. Mars amba Mariikh ayaa waxa uu u muuqdaa in uu noqon doono lambarka koobaad ee la degi doono waqti xaadirkan. SpaceX ayaa waqti xaadirkan waxa ay wadaa mashruuc ay ku dhisayso Mars amba Mariikh iyadoo ay rabaan sanadka 2026 in ay dadka gaarsiiyaan Mars amba Mariikh. NASA ayaa iyaduna waxay iclaamisay in 2035 ay isku dayi doonto inay dadka dejin doonto Mars. haddaba bal ka waran haddii uu arrinkaasi fashilmo suurtagal noqon waayo lana waayo goob kale oo aadamaha loo raro maxaa ku dhici kara bay kula tahay koonkan aynu ku noolahay. malaayiin xayawaan ah ayaa dabargo'i doona iyadoo aadanuhu sabab noqon doono fuxshiga daroogiska iyo dilka iyo aadanaha ku dhex badan doona. oksijiinka oo la waayo ma isweydiiseen marnaba dhulkan aynu ku noolahay haddii hal daqiiqo oo kaliya oksijiinka laga waayo maxaa ku dhici kara. natiijadu waxa ay noqonaysaa baaba halkaas daqiiqo gudaheeda waxa guud ahaanba ku guraya badaha togaga iyo webiyada ku yaala dhulkan korkeeda. dhulka ayaa waxa uu isu bedelayaa wax qalalan cirka ayaa waxa uu noqonayaa madow noolaha ayaa baaba'aya sidoo kale dhismayaasha dhaadheer ayaa soo dumaya waayo oksijiinku waxa uu qayb ka yahay waxyaabaha ay dhismayaashu ku taagan yihiin. dhirta ayaa sidoo kale qalalaysa oksijiinku waxa uu qayb muhiim ka yahay nimcooyinka uu Rabbi subxaanahu wa ta'aala inagu manaystay lagamana cabsi qabo arrinkaasi inuu dhaco
ilaahay ayaana ku mahadle. Robot. Haddii aad daawato filimka I Robot amba filimaanta la midka ah, waxaad ka dhandhansan karaysaa runtii inay robotku aadanaha awoodda kala wareegi doonaan mustaqbalka. Stephen Hawking ayaa mar kale waxa uu leeyahay isweydiin ma laha inay robotku shaqooyinkeenna iyo nolosheenna la wareegi doonaan mustaqbalka, balse waxa isweydiin leh goorta ay noqon doonto. waqti fog ma aha goorta ay shaqaalaha xafiisyadu ku shaqayn doonaan by software. taksiyada ayaa waxa ay ku socon doonaan bilaa dirawal. shaqooyinka warshadaha waxa qaban doona robotiska. xataa daryeelka caafimaadka waa lala wareegi doonaa. maxaa loogu baahanayaa robotiska? robotku waxa uu qabanayaa shaqooyin ay ibnaadamku lacag badan ku qaataan waqti yar qabtaan, ayaa isagu waxa uu ku qabanayaa waqti aad u yar. mana odhanayo waqtigaas ay kaga dhan tahay ee waa shaqaalo joogto ah. waxaa laga yaabaa shaqooyin ay ibnaadamku maalin dhan qabtaan in isagu hal saac oo kaliya ku qabto. marka arrinkaasi ayaa waxa uu keenayaa in robotka loo baahdo. waana arrin dhacday xataa waqti xaadirkan la joogo. dhowaan ayay ahayd dhacdo ka dhacday dalka Chinaha. shirkad ay shaqaalo badan ka shaqaynayeen ayaa guud ahaan waxa lagu bedelay robot. gawaadhida ayaa iskood isu kaxayn doona. Hawking ayaa mar kale waxa uu leeyahay robotka waxa laga yaabaa inay sabab u noqdaan gabagabada dunida. iyadoo tartan loogu jiro horumarintooda ayay aadanaha degdeg awood iyo maskaxba ka badan doonaan. haddii ay taasi dhacdo ay aadanaha ka caqli bataana, robotku isaga ayaa iskiisu samayn doona. bal ka waran haddii uu robot ku sameeyo robots kale oo caqli badan, robotskaasina ay sameeyaan kuwo kale oo caqli badan, ibnaadamka soo meesha lagama saarayo. balse ha warwarin, arrinkaasi cadaawadda ah ma aha mid waqti xaadirka dhacaya ee waxa laga yaabaa inuu dhaco waqti aad u fog. aad ayaad ugu mahadsantiin daawashadiina. haddii aad ku cusubtihiin janalka dadweynaha, subscribe saara si aad la socotaan barnaamijyada mustaqbalka. intaan barnaamijyo kale isugu iman doonaba, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad ku cusub tahay janalka dadweynaha, haatan ku soo biro ka mid noqo asxaabta ku xidhan adiga oo saaraya subscribe si aad ula socoto barnaamij walba la soo geliyo.